السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. halkan waxaan idinka soo gudbinayaa daawada بإذن الله تعالى loo isticmaalo falka daaweynta falka ama sixirka ama camalka waxa loo yaqaano ee dadka loo qabto ee dadka muslimiinta ah lagu waxyeelayo. aayadahaasi saddexda ah ee aan halkan ku soo gudbinayo insha Allah waa aayadaha sixir kasta ama fal kasta ama camal kasta in kasta quwadiisu ahaato sidoo doonaha u xoog weynaado بإذن الله تعالى waa lagu daaweynayaa waana daawo u ah hubaal ah oo quraanka kariimka ilaahay uu ku soo dejiyay. aayaduhuna waa kuwan sidanay u akhriyaysaa. aayadaha saddexda ah waxaad ku akhriyaysaa biyaha aad cabaysid ama kuwa aad ku meedhanaysid ama kuwa aad cagaha la gelaysid intaba. haddii aad ku akhrisid saddexda aayadood waad cabaysaa bisinkaad u qabanaysaa ama waad ku meedhanaysaa ama cagahaad la gelaysaa biyaha adigoo niyeysanaya in ilaahay kugu daweeyo wax allaale wixii cudura ma garanaysaa ama fala ama camal ama sixra ee lagu qabtay. aayaduhuna waa kuwan bismillaahir rahmaanir rahiim falamma alqu qaala muusa ma ji'tum bihi as-sihr inna allaha sayubtiluhu inna allaha la yuslihu amal al-mufsidin. aayadda labaadna waxa weeye bismillaahir rahmaanir rahiim wa alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u inma sana'u kaydu saahirin wala yaflihu saahiru haythu ata. aayadda saddexaadna waxa weeye bismillaahir rahmaanir rahiim wa qadimna ila ma amilu min amalin ja'alnahu haba'an manthura wa qadimna ila ma amalu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. saddexda aayadood weeye baad ku akhriyaysaa biyaha waadna cabaysaa bismillaahir rahmaanir rahiim marka taad cabaysaa بإذن الله تعالى xilliga doonta ahaatay laakiin waxa ugu fiican labada ceel guduud ee maqribka iyo waaberiga. ilaahay u shukrina ajirna ilaahay naga siiyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.